tan waa goob saakay aroortii hore uu ku soo dumay dad markaasi xamaalata ah oo ka shaqaynayay halkan oo ah goob ku taala markaasi isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho sida ay noo sheegeen dadkii goobjoog u ahaa ee qaar ka mid ah shaqaalaha iyo sidoo kale maamulka degmada Wadajir ayaa lagu sheegay in ay waxyeelo ay ka soo gaartay dad gaaraya ilaa 4 ruux sidoo kale hal qof ayaa halkan ku geeriyooday dadka halkan ku geeriyooday ayaa dhamaantood la sheegay in uu ku soo dumay shubkan gadaalsheeda uu ka muuqanayo sidaad aragtaan waxaana ay mas'uuliyiintii halkan maamulka degmada Wadajir ka tirsanaa iyo sidoo kale qof kale oo goobjoog u ahaa oo shaqaalihii halkan dhisay kamid ahaa ayaa waxa ay sheegeen in halkan farsamo xumo darteeda ay ku soo duntay shaqaalihii ka shaqeynay waxaana ay sheegeen in birahan iyo sidoo kale shubka gadaasheeda uu ka muuqdo uu ku soo dumay dadkii markaas ka shaqeynay halkan waxaa ka dhacay shubaa soo dumay kadibna 4 qof oo dhaawac ah iyo hal meed ah laga helay isla markiina waa la qaaday anina shaqaalahan ka mid ahayn shaqaalaha saaki hawshan ku jibaad qaybkeeda aniga ka mid ahayn marka maxaa sabab markii ma dumay shubka wallahi ilaa amarkiisa ku dhacay shaqadii oo la wada iska soo dumay shubka ilaa hadda waa la yaaban yahay dadka geeriyooday qofka geeriyooday magaciisa ma noo sheegi kartaa qofka geeriyooday xaafadeenu degan yahay heer afgooy waaye dhibkii saaka meesha ka dhacay waa dareemi karnaa wuxuu ahaa dhismo soo dumay maamulka degmada Wadajir dhismihii iyo dhibaatadii meeshan ka qayb qaateen ilaa hadda saaka waxa uu soo bilowday 3 saac baarihi 3 saac oo hadda aan joogno 6 saac oo duurnimo falkii meesha ka dhacay dareem karnaa waxaan ka soo saarnay kooda waxa ku jirta nolol sheegay 5 qofood ku jirta Allah 4 qofood aan ka soo saarnay mid dhaawaciisu daran yahay iyo hal xabo meedkiisa hadda dhawaan ka soo saarnay oo hadda loo qaaday isbitaal Madiina dhaawacayaasha kale waxay jeefaan isbitaal Madiina marka waxaan rajaynayaa insha Allah dhibkan dambe inay soo laaban maamulka degmada Wadajir waxaan rajaynayaa maanta dhibka inuu mar dambe nagu soo laaban waa rajaynaa shacabka reer Wadajir waxaan leenahay dadka inta Ilaahay u naxariisto walaalkeena maanta meeshan ku sheeday Ilaahay u naxariisto leenahay dhamaan tiifiyaasha iyana waa mahadsantiin maxaa sabab leh markii dhismaha inuu dumo wallahi dhismaha waxa sababay si qaab daran loo dhisay malahan tiir iyo wax u dhaxay malahan marka saas uu ku soo dumay marka waa dareemi kartiin guriyaha hawlka dal fiira xataa injineerka meeshan dhisaatay qaabka uu dhisay qaabka siqa waxa waa suxun u dhisay kama mul ahaan waxaan rajaynayaa in dhismaan in la dumiyo oo dhismo kale in loo dhiso insha Allah way dadku ku soo dumo dadkii ka shaqeynaya insa waa dad kale oo hoos ama santahay dadka meesha ka shaqeynaya saaka waxay gaarayaan nolosha 5 qofood 4 qofood dhaawac oo hal xaba aad u daran oo hal ninka kale oo barnaamijka oo meesha shameedada waxa qasayn meesha ku dhintay ninka hadda aan ku soo bixino Cabdi Fataax Muumnu 5 TV Muqdisho